ma ka badbaadi karaa 1000 xabo caara muuqaalkani Marquez wuxuu wajahayaa 4 challenge oo naxtin leh si uu ugu guuleysto $800,000 oo wax walba waxay bilaaban doonaan tijaabad ugu xun. Challenge koowaad Marquez waxa uu ku adkaystay inaan weligiis la cabsan gelin karin, laakiin markii saacadaha la bilaabay 1000 xabo caara oo nool ayaa jirkiisa lagu shubay. waa inuu dhabar adeega muddo 10 daqiiqo ah oo calool gariir miiran ah. Marquez wuxuu ku adkaystay oo u dadaalay inuu caara uusan ka cabsaneyn, laakiin ugu dambeyntii waxa uu ka gudbay wareegaas. laakiin dabaaldegiisa ma ahayn mid aad iyo aad u faraxsan sababtoo ah wareega xiga ayaa ka adag. wareega labaad ee tartanka baabuur soo degaya muddo 20 ilbiriqsi ah. xaaladdu waxay isku bedelaysaa mid waali ah. Marquez oo indhaha ka xiran ayaa laga soo tuuray meel 200 oo feet u jirta dhulka. kadibna waxaa loo gudbay tijaabada harada oo waxaa lagu riday baabuur sii degaya oo ku degaya biyaha hoostooda, iyagoo kursi daba ay saaran tahay $800,000 oo loo qeybiyay 8 boorse. Mr Beast wuxuu soo bandhigay $100,000 si uu iskaga haro tartanka, laakiin Marquez wuxuu u diiday. Marquez wuxuu haystaa 20 ilbiriqsi oo qura si uu baabuurka ugu soo baxo uguna badbaadiyo biyaha hoostooda. wuxuuna ugu dambeyntii la soo baxay dadaal dheer kadib 7 boorso ay ku jirto $100,000, taasoo ka dhigaysa inuu haysto lacag dhan $700,000. wareegga saddexaad ee tartanka sanduuqa sirta ah iyo Feastables markii uu saxiixay warqado sheegaya inaan dacwad la furi karin haddii uu dhaawacmo, waxa uu gacanta geliyay sanduuq madow oo ay ka dhex guuxayaan walax. wadnaha ayaa istaagi gaaray kadib markii uu dareemay wax dhaqdhaqaaqaya, laakiin markii uu gacanta geliyay waxa u soo baxday shukulaatada cusub ee Feastables. wareegga afraad ee tartanka waa in tartamaha la aasaa dhulka hoos lagu aasaa muddo 24 saacadood ah. halkani wax kasta waxay isku bedeli doonaan qarow dhab ah. Marquez waxaa lagu riday sanduuq naxash waxaana lagu aasay dhulka hoose. waa inuu dhex joogaa muddo 24 saacadood ah. gudaha mugdi, daal iyo jahaware dhanka waqtiga ayaa ka dhacay. isaga oo waali qarka u saaran ayuu garaacay gambalaalka badbaadada si loo soo qodo. nasiib wanaag markii la soo saaray oo bannaanka u yimid waxaa loo sheegay muddada oo gudaha ku jiray, taasoo ah in ka badan 24 saacadood. sidaasna wuxuu u gudbay wareegga xiga ee tartanka. wareegga xiga waa wareegga go'aanka, wareegga ugu dambeeya ee qaladka diidaya. hadda Marquez wuxuu u joogaa tartankii ugu dambeeyay, laakiin kani waxa uu ahaa kii ugu cabsida badnaa sababtoo ah wuxuu ahaa nuqul hadda koor uu ku soo haray ninkan Marquez lagu magacaabo. Mr Beast wuxa uu miiska soo saaray dalab weyn, qaado $700,000 oo hadda gurigaaga iska aad ama ciyaarta sii wado si aad ugu guuleysato $700,000. Marquez wuxuu go'aansaday in uu halista qaato. sharciyada waxay ahaayeen kuwa aad u fudud laakiin dilaa ah. waa inuu si taxadir leh u gooyaa 4 biskud oo u qaabaysan qaab kala duwan. kadibna wuxuu galay shaqada. biskudka koowaad wuu ka gudbay, kan labaad wuu ka gudbay. Marquez si degdeg ah ayuu u socday waqtiga inuu ilaaliyo. muxuu sameeyay hal qalad oo yar kaasoo abuuray anfiriir. qolkii dhan ayaa aamusay. biskudkii wuu jabay. hal ilbiriqsi gudahood Marquez wuxuu ku waayay $700,000. tartankii wuxuu ku dhammaaday si murugo leh.